بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan كام كراس قبو مامooyin ku nool kaamkii hadda waad joogtaan waxay la tahay ishiina macallin idii ah sadar muuqdana waxa li waa su'aal ka dhan meeshaan horta markii hore dad xoolo u dhaafeen oo barakacayaal oo baadiye ka yimid oo wadankii ilaamigi iyo dawlad baa jirtay halka ku tumbadan niribaan ahay haddaan nimidna hay'adii RC la yiraahdo ma ay horta waxna gacan qabto waxna tara ma aan helin sidaas oo ay tahay hadda meesha waa ku dayacanahay hoyga meesha noo ah waa u jeedaan waa bacaha iyo buushashka waxa kaloo jirta wax la cuno ma laho waxa weeye dadku dad shaqaysto meel xoga yimaadaan ma nihin meelahaasaan xoga xaaba iyo qaba iyo inta wax ka soo xaabna suuqa geyn jirnay wixii lacag Soomaali baan la ka siin jiray lacag Soomaaliga waxa la yiri la qaadan maayo ilmo walba markaan salaadii niraano mar maandheeyo timin sokor ay noo soo gado waxa la yiri lacagti waa la soo diiday rees qababa baan nahay kaamkaan ku aqannay waa xanuunsanahay shalay baan aaday gaalkaayo igu soo ceshay lacagtii wadnahan ka soo celin karin tahi xanuun neeftuurayo marka waa dayacanahay ana la soo gaaro kaalkay hadaatiin walaalahayo cabayna lacagtaas bataa la igu soo nacay 200 gabdha yar shay oo qaba inta soo gurtay haddana waa maqan yihiin waxaan soo guri jirnay geeda inta ka soo gurno soo jarno oo dhulka dhigano waxana geedka ku gubno waxana dhulka ku gubno baanu soo diirna ka diirna waa tidacna magaaladan geeyna 10,000 baan ka siin jiray Soomaaliya waana la ka diid waxa la yiri lacagtan waa dhacday hadda lacagtii aan ku shaqaysan jirnay haday naga dhacday wax kale aanan hayn soo marka waa bes oo ma dadkaas ilmaha xunka ah gaajad qoyodiya boonda duruufku kala tageen iyo baahi darteed baan meesha ku ahaa qabadaas aan guri jiray iyadii la nac ka hadda waxaan rabnaa wixii loo awooday in la soo gaaro بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا حلي هذا بوستي آدم ورسمة joogta kaamka rays qaboobe hooyo weyn baan ahay ciyaal yar yar aan mas'uul ka ahaa sida la idin sheegayba waxaan nahay dadkii xooluhu ka soo dhamaadeen oo reer guuraaga ahaa halka markii u horeysay matoor baan soo kordagnay oo niman islaam ah dhulkaas iska deganaada yiraahdeen inta ilaahay u idin bixinayo matoorkii waa naga jabay hadii uu naga jabay silic iyo rafaad iyo biyo la'aan iyo wareer ba'an baa naga qabsaday ولينا وان كسي جرنا waxa weeye baahi aad u fara badan baan haysa duur kaasan ilmaha yarka waxaan uga dooni jiray qabo iyo qoryo iyo wax la yiraahdo dhabarkaygaasaan ugu soo qaraabi jiray waa qabada waxa la iga siin jiray xabadii markaan tidco 14,000 meelahaas 12,000 markii aanu geynay oo ku safarnay 30 xabba hadii aan soo helo ilmaha koomba bariisa iyo qudaarteedan habeenka uga keensan jiray oo waxa weeye aan nafta iyo qutulyoonka ugu ilaalin jiray waana la ku soo nacay qabadiyo waxa la yiri shilinkii Soomaaliga ahaa ma soconayo annaguna dollar ma haysanay dheheen gabdhihii naga gadan jiray waxa weeye sixir bararkii aad buu noo saameeyay de marakan waxaan ku jirnaa xaalad serious aan ku jirnaa dad waxaan ugu jira xitaa 4 bari 3 bari aan dab shidan sixir bararkaas awgiis hadda waxa ila tahay madaxweynaha waxaan baaq u dirayaa iyo dawladda Puntland hadii ay burburka maatada Puntland ka talinayaan عقبضة هكوسي هيا وادو تشيدان سيدا ادو تشيدين لعبتي Soomaaliga ahayd oo hooyo oo wax ku gadan jirnay wata waadu jeedaan waxba lagu falmiyaa leeyir shalay tagaalka ayaa la aaday islaantii xanuunsanayd baanu anagoo kooxa isugu darno qabaanu ka gurnay lacagtaas markii aanu ka gurnay markii la yiri waxa looga soo baxshay hilib iyo magaaladii waxa la yiri lama rabay orda la taga oo la noqdo sidii baanu ku soo noqonay xitaa waxana la yiri beelkan raacaynay hadiina wadanin lacag dollar isaga degay waxa weeye marka lacagtaasu iyo sixir bururkaasu muraaqa weyn bay anaga nagu hayaan dhibaato weyn bay nagu hayaan maata jalis weyn bay nagu hayaan dib weyn baan ku cabanaynaa hadaan rays qaboobanahay